Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaantiin soo dhawaada waxaan rajeynayaa inaa imaqleysaan haddaa imaqleysaan waa ku maqalnaa iisoo qora idinkoo mahadsan okay hal qof aa ujeedaa haddii aad imaqashaan haa iisoo wada qora okay waa mahadsan tihiin already waxaan ujeedaa 5 qof oo aad iisoo qoreysaan waa ku maqalnaa aada u mahadsan tihiin sidaa og tihiinba saakay anigoo jooga fitnesska ama gymka sidaa u taqaanidba ayaa waxaan arkay hal mar koolal isoo galay koolalkii kadibna dadkii isku wada afay noqdeen waan yaabay maxaa qaldanaa isiri kadibna whatsappka waxaa lagu soo diray in qof uu facebooka dhex waday in kinsike uu dhintay weliba muu ahayn qof hal meel keliya soo dhigay macnaha facebook page oo like fara badan haysta keliya lama soo dhigin qofkan wuxuu ahaa qof aniga toos ii ataagaya oo target ku socday wuxuu sameeyey in all social media facebook wixiiba page oo Soomaali ay isticmaalaan weliba gruubyada qoto kuwa la yiraahdo oo kale iyo Soomaali weyn iyo maxay gruubyo fara badan oo member aad iyo aad u fara badan haysta ayuu wuxuu ugu soo wada tahay sida qof la baafinayo kale group kasta oo member fiican haysta oo dad fara badan ay ku xiran yihiin waa u soo dhigay run ahaantii Soomaalida markay leeyihiin dhawaq maxaa la yiraahdaa dhagax meel dhow warna meel dheer dhawaqna meel dheer waa run durbaba waxaan arkay hal mar telephone toos ah mid whatsapp messenger maxay hal mar anigiyo wareerayba dadkuna ay wada leeyihiin marka taa waxa ugu darneed markii familkayga walaashii ooynayso oo weliba marxalad xun ku jirto iyadiba xaamilo iska ah aan codkeeda maqlay iyo aabahaygu la yiri istaagu ka dhacayba alxamdulillah haduu fiican yahay ilaahay amaad iska leh caafimaadkiisa waa taam hadda laakiin way dhacdaa sidaan oo kale in lagu sameeyo fanaaniin caan ah aniga iga horeeyay aniga uguma horeeyay laakiinse aniga waxaan ka duwanaa dadka hore qofkan wuxuu ahaa qof toos aniga ii ataagaya macnaha inta meel ee social media uu ku soo share gareeyay ee uu soo dhigay waxa ay wada ahaayeen gruubyo member fiican wada haysta uu ku soo wada tahay kaliya ma ahayn hal meel in la soo dhigo sida fanaaniinta markii lagu sameynayo kale ama dadka caanka ah fanaaniinta caanka ah waxa lagu sameeyaa in farxiyo kabeer hadda ka hor lagu sameeyay fanaaniin fara badan lagu sameeyay iibla mara arki jira hadda ka hor lagu sameeyay way jiraan dad xaasid iska ah ee waxa ugu baxdo horta qof waqtigiisa dhaafay ma jiro maanta oo dhan hadii lagu digriyo CK beriyo dhimana ama saa dambe CK waqti uu leeyahay waqtigiisana ciidamada karto adduunka oo dhan haduu isku yimaado waqtigii cid dib igu dhigi karta mala cid iga soo hormari kartana malahan laakiin tan aniga xanuunka ibadaa waxay ahayd in familkayga xanuun la dareensiyo iyo naxdin run ahaantii adiga waa dareemi kartaa familkaaga marka laga naxiyo qaasatan weliba qof xaamilo ah iyo aabbo waayeel ah haddaba tan la iskaga hari maayo ani familkayga uma raacsana balse maya madax adeegi ugu jiro ana aqaano tan la iskaga hari maayo mid aan ku harayo wala friends wala family wala saaxib mid aan uga harayo maaha ninkan waan soo ogaaday wuxuu joogaa boosaaso joogaa ninka community-ga aan soo dhigay sawirkiisa ninkan marka hore waxa soo raadiyay nin leh waa walaalkay waa la hadlay waxaan ku yiri walaalka ha ahaado ama walaasha ha ahaato ninkan familkayga maanta godob weyn uu ka galay ballan waxaan ku qaaday siduu familkayga ugu oysiyay inuu ooyo mana ku booteenayaan dhaay taas meel ku qor ninkan aniga iimu geysanin gafweyn maanta ii geystay wuxuu dhahay neehow ninkan wuxuu leeyahay facebook-gii baa laga jabsaday abti waxba cala calim baa ku dhahay facebook laga jabsaday waxaas ay leeyahay wax kala maysa maya hor iska tag oo ku damiyay waxarka bacdi kool kale ay soo galay waa aan qabtay because Soomaaliya dadka iga soo wacayeen walaal waan ku taageernaa saasa maqal waan naxnay aan ka qabanayaan la hadlay kool ay soo galay isla boosaasadii ah ninkii baa wuxuu yiri
qofka aan raadinayso waa aniga. Okay, way wanaagsantaan dhacday hadda lugaaga isku keentay. isla markii waxaan bilaabay inaan record sameeyo socodkiisa aan duubto. lambarkiisa uu iga soo wacayna asagana uu ku jiraa meeshuu saarnaa. hadal wuxuu ku bilaabay niyahow aniga Facebook-ga isticmaalayay waa la iga jabsaday waaba hurdo kula waxaan markii la soo dhigay aniga waa hurdo haddaan soo kacay Facebook-ga waa la iga jabsaday ma hadlay aniga wuxuu sheegay waa dhageysanaya codkiisa uu idubmay markaas wuxuu yiri Facebook waa la iga jabsaday marka niyo aan cadaawad ku qowmihi taageeraaga ahay barra qadalkiisu u waday oo wuxuu yiri ani way jirtaa group wax soo dhigo sida qoto kale maanta wax soo dhigay hadaaymiya wax soo dhigay waxaan ku yiri adiga dhuucilkaaga dhageyso waa hurdaa ee saa ii sheegaysi haddana waxa ay leedahay maantadana groupka qoto soo dhigay Facebook-gaagana waa laga jabsaday ay dhalay waa tahay baan ku iray ballan waxa igu ah meeshaad i gaarsiisay xanuunkeeda inaan ku tusaan ku gaarsiiyo telefonkana waa ku damiyay tole habeer wadaaga nahay okay joogta soo waceysay iyo isagii video soo duubay aniga maxaa cadawad naga dhaxayso waxba la caalim barada hadda aaminsantahay siikay wax kugu sameyn karo halkan kama sheegayo waxaan kugu sameynaya halkan kama oranayo waxaasan ku sameynaya balse waxaan kaliya ku sheegayaa ballan waxa igu ah aabe istaaga ka riday iyo xanuunka familkeyga aad dareensiisay mid lamida inaad dareentid waxba ana hadda familkeyga ugu soo waalnin aniga hub ma haysto jin ma haysto wax ma haysto waxaan kugu sameynayna halkan kama sheegayo kaliya waxa ku dareensiin doonaa xanuunka maanta familkeyga ay dareemeen inaad dareentid intaasaan ku sheegayaa bis anigaan doonaa u soo maro adiga xitaa qof waan dhihi karaa qofkan wuxuu ahaa qof sida qof dadka fanaaniinta ku sameeya dad maala yacni jira oo noloshaba qayaali ugu nool oo isdhahay hebel maanta saan dhibal waxa ka soo dhigto ha ku kala kaco like badan ha la saaro qofka noocaas oo kale mu ahayn qofkan wuxuu ahaa qof target gooniyo ku socdo waayo wuxuu soo dhigay wixiiba group ah oo Facebook caanka ah meel uusan soo dhigid male war degdeg wixiiba Facebook ku noolaayo dhan way soo wada raadiyeen isla markiiba Soomaaliya gaartay arinta familkeyga gaartay wuxuu soo dhigay inta social media Facebook group laga isticmaalo ee dadkan ay maaragtay groupyada ugu badan haysta ayuu ku soo wada safay oo ku soo wada taxay wuxuu ahaa qof aniga gooni ii ataagayay ee cadaawad gooni ah ani iga raasanay way ku hirgashay adiga way ku hirgashay waxa rabtana waa heshay balse oohinta adiga ku dambeyn doona taasaan ku sheegay ayadoon booto iga ahayn waliba hadda waan deganahay carasaasa ima hayso maskaxdeeda way joogtaa waxaan ku sheegayaa kaliya in adiga oohinta aad ku dambeyn doontid ayadoona booto iga ahayn wallahi san family celinaynin saaxiib celinaynin friend celinaynin taageero iskala soo tag waxaas sad maanta familkeyga uga waashay in aan kaaga waalo ay ugu balana kumana sheegayo waxaana sameyn doonaa kana yeelaya kan nin wax sheegay nin wax raba inuu sameeyo halkan kama sheego waliba waan ku sheegaya ma carisin hadda inta qof bini aadan uu degan yahay degana laakiin waxaan ku sheegayaa in maanta xanuunka iyo waalida ah familkeyga dareensiisay adigana ay ku sugayso taasoo ku sheegayaa mid kale waxaan u mahad celinayaa dhammaan inta aniga iga naxday oo ijecel intii Soomaaliya joogtay Kenya joogtay ee kaararka lacagta ku soo shubtay ee lambarkeyga toos ku soo wacay ilaa maanta aad baa idinkaga mahad celinaya waxaan kaloo aad ugu mahad celinayaa wiilka abtigu ahay Saadaq Cabdiqaadir oo reer Madiina ah oo familkeyga intaan aniga gaarinba niyada u sii dhisayay u sheegayay ee lahaa ninkan waxyar ka hor live soo galay YouTube-ka waa uu noolyahay isdajiya abti aad iyo aad u maasan tahay waan kaaga mahad celinayaa waxaan kaloo u mahad celinayaa Filson gabadha reer Balaxi oo iyadana familkeyga dhinac ka wacisay walaal aad baan ku salaamayaa waana kaaga mahad celinayaa sida aad familkeyga aad u qancisay aad maaragtay aad ii garab taagneed waan kaaga mahad celinayaa walaashay run ahaantii mar kale idin leeyahay anigu waan soo arkay farxii kaba yar mar lagu sameeyay iidla mar lagu sameeyay fanaaniin fara badan oo lagu sameeyay waan arkay balse taas waxay ahayd qof ay u geesay caruurnimo ama doqonnimo ah bal waxaan saahadaad tiraahdo waa lagu sheegareynaa maxay way kala kacay iyo like raadisa qofka waxa uu ka doonaaba
qofkan meesha uu ku tuhmayay meeshan daawashay leedahay ama groupkan uu kala kacsan yahay waa usoo dhigay meesha uu ku tuhmayo in meeshan la daawan doono ama daawasho ee leedahay ama group dad badan ay ku xiran yihiin waa usoo dhigay weliba qoraalku uu adeegsaday wuxuu ahaa qoraal inaba aan la beensan karin sida qoraal qof si dhaba u hadlaaya erayada uu qorayana waxay ahaayeen erayo qofkii arka uu ka naxayaba erayo aan laga dareemeyn inay mala awaal yihiin ama been ay yihiin anyway qofkan balaankan keligii kuma jiro kowde balse waa isaga daba imaana ballan waay war hooyada iyo aabaha hadday isoo raadiyaan xitaa ma lagu kala baxayo reasonka kuu geysay ama sababta ka dambeysa inay hor imaado u qaad haddaa rabtid dhucilkan youtube kasoo hadlaa intuu iska fadhiyaa wax kaama qaadi kara boosaasaa joogtaa waxaan kugu sameynaya ama aniga tallaabada aan qaadaya inta kama sheegayo balse waxaan keliya kugu bishaareynaa in familka aniga aan ka dhashay xitaa aysan ireebi doonin tallaabadan raba inaan qaado ee adi kugu soo aadan marka ani taada i xanuujisabe insha allah tayda xanuun maxaa la yihahdaa raganimadeeda yeelo alxamdulilah waxaa waaye dhibaato weyn hadda saasa ma dhicin aabaheyna wuu ka caafimaad qabaa naxdinta u geysatay alxamdulilah ilahay amaad iskale markaan leeyahay alxamdulilah laakiin waxaan kuu sheegayaa adiga inaa hadda ku dambeysa adina ay ku sugayso waa inoo iyo adiga xanuunkaaga iyo calaacalkaaga marka taas intaasaan uga baxayaa idinkana waa mahadsantihiin walaalahayga aad iyo aad ayaan idinkaga mahad celinayaa sida qadarinta iyo qiimeynta le oo idinkana social mediahiga aad ugu soo waalateen aad u malayseen arrintan inay run tahay wallahi been idima sheegayo intaan familkayga wicin oo dadka isoo wacwacayay gabar waxaa ku jirta oynaysa kii iga soo wacday ma moodo xitaa markii aan ka qabtay ma moodo aniga i weydiinaya leedahay walaal masiikii baa dhinta marun baa waa kuwa kula hadlooyaa dhahay shaydaanka iska naar walaal waxaas kama jiraan waa iska oynaya run ahaantii jacaylka ay jeceshiin waa idinkaga mahad celinaya walaalahiyaa tihiin markasta waa idinku celceliyaa waa idin sheegaa waxaan dareemayaa in aad tihiin walaalahay oo aan arkaaba oo aan hubaa oo aan dareemay qalbigaygana aan ku haysto aad iyo aad aan idinkaga mahad celinaya jacaylka aad ii heesaan wax laga qaban kara malaha jacaylkeeda intuu ila jiro intaasaan ii taageersan tabartii waa dhamaatay macnaha tabartii waa dhamaatay haddeeba marayso in wuu dhinto lasoo qorayo waa dhamaatay tabartii macnaha wax laga qaban kara male waa maceeda kowdhe balse waxaa igu balana ama wuu dhinto soo qor ama wuu suuxay soo qor tan mid aan ku joogsanayo maaha war aniga familka i dhalay aan ka yeelaynin inaan joogsado taas mida aniga ballan qaado waayo hadduu ilaahay yidhaahdo kowdhe ballanna waxaa igu ah sida adiga babliga ah aad aniga usoo dhigtay naxdinteeda in calaacalkaaga halkan aan u keeno aniga markaan iraado halkan aan wax keenayaa iskama hadlo waa ka dhabeeyaa ballan iyo axdiyaan ku qaaday inta inaan soo dhigo calaacalkaaga hadduu ilaahay yidhaahdo idinkana mar iyo mar kale idin leeyahay walaalahii waa mahadsantihiin run ahaantii wejigeyga ayaad ka dareemaysaan murugada waayo maanta dhan waxaan u qabay qofka waalidkayga xanuunsaday in codkiisa aan maqlo alxamdulilah wuu caafimaad qabaa hadda waxba kama maqna idinkana aada u mahadsantihiin aad iyo aad iyo aad iyo aad mahad celin aan la soo koobi karin aa idin mahad celinayaa run ahaanta waa iska sidan waaba iska sidanba micnaha ani iguma horeyso laakiin aniga xanuun gooniya hadda ii leedahayo qofkani wuxuu ahaa qof target gooni ah waayo wixiiba facebook group ah ayuu ku wada safay fanaaniin sidan dareemo waan arkayay hadda kahor kaba yaro lagu sameeyey iidla mar lagu sameeyey iyo fanaaniin kale mar lagu sameeyey waan arkayay waa iska sidan haddii aad maqashid qofaa la xaasidaa ama qofaa lagu dhegan yahay qofkaas waa qof horumar gaaray taas caddeynteeda haddaa wada haysiin alxamdulilah ilaahay ii siyaadiyo idinkana taageerihiina mar kasta idinkaga mahad celiyaa mar aan aniga halkan soo fadhiisto oo ilaahay ka sokow idinka aan idiin mahad celinin tan ilaahay anagoo dhan ay waajib nagu tahay markii aan kasoo tago mahad celinteeda qofka aan bini aadanka aan maaragtay u mahad celin ilaahayna muu mahad celiyo marka idinka mar kasta aniga wallahi taageeraha ii haysaan iyo xushmadda ii haysaan mar kasta waa idinka mahad celiyaa kun iyo kow jeer idin leeyahay waa ku mahadsan tihiin taageeraha mar kasta ay la garab taagan tihiin
cadowga agtoosiis aada umahadsantiin insha allah waxaa inoo balana wixii abdeyda hadduu ilaahay yiraahdo iyo ballantaa idinka qaaday inaa oofiy biidni illahi alkariim dhammaantiin meel kastaa joogtaan insha allah waxaa inoo balana hoolaha aan isku baranay in aan dib isugu soo laabano hadda xaaladda waa safe familkayga hadda way faraxsan yihiin aabbayga wuu fiican yahay walaashayda way fiican tahay dhammaan waa okay alxamdulilah dhib ma jira hadda taasaan rabay inaa idinla socodsiiyo meel kasta aad joogtaan